السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا محمد حسن يوتيوب كداونيسان waa another one tiicada meel walba aad dunida ka joogtaan team another one teamka aan ku dhinto teamkoodneega aan ku qoray niya samihii kalgacal ugu soo dhawaada wadna ku mahadsantihiin daawashada fiideoda aan soo dhigo. fadlan haddii aad ku cusubtaan waxaan kaa codsanayaa daawade inaad subscribe dhahda janalka gambaleelkana furato si ay kuu soo gaaraan muuqaaladii ugu dambeeyay fiideoga laag saar laagtu muhiim ay u tahay janalka wadna ku mahadsantihiin la jiristiina iyo la joogistiina sida caadada iyo dhaqankaydna kusoo dhawaada barnaamijka dhabka hadal. barnaamijka dhabka hadal waxaan rabaa inaan kusoo qaato caawo ninkii cimraan ahaa oo aad u malayso in caruur laga laayay ayaa fiideo soo dhigay. shiina culey ayaa kusoo biiray arinta Nadiira Nairus. barnaamijka intaa ayaan ku falanqeyn doonaa. marka hore waxaan rabaa inaa ila dhegaysatiin odagaan bal ila dhegaysta. nin xanuunsan ma caayayo inuu buko cadayn dhabax baan idin siinaya. wuxuu ku leeyahay ninkan waa nin buka ma caynaayo. caay soomaali ay tiraahdaa caay hooyadaa was keliya caay ma ahan. soomaaliya saas tiraahdo caay hooyadaa was keliya ma ahan. inaa bukana cadeen baa idin siinaya uu leeyahay. nasiiba cadeynta maboodhari baa balaayo ah. haye bulshadii Soomaaliyeed baa damaadan. haye mabadweyn qurun iyo qabyaalad baa la dabaalanaya. aad iyo aad ku socdo. waa maxay balowgan barihii bulshada isqaatay ayey oo bahalo canaasiir yaryarihii ay la buuqayaan. ujeedin boodhari baa balaaye ah uu taagan yahay mise soomaali baa damaan mise saas iyo saas waaye canaasiirtan baraha bulshada ka qeylinaysa. aqoon la-aan waa iftiin la-aane aqaal iyona ilees la-aane u aada dugsiyada u aada aa maqli jiray. aqoon la-aan waa iftiin la-aan aqal iyo ilees la-aan u aada dugsiyada u aadaan maqli jiray. marka aad tahay qof professional social mediasta ah oo aad rabto inaad wax sheegto waxaa loo baahan yaha marka hore edabtaada inaa ilaalisidaa loo baahan yaha. edabtaada iyo markaa hadlayso qaab asluubeedkaaga iyo dhaqankaaga inaa wanaajisidaa loo baahan yaha. maxaa yeeley qof weyn baa tahay dad baa kugu xiran intaa la eg. marka hadallada qaar looma baahna in afkaaga ay soo qabtaan. waxaa loo baahan yaha inaad ilaalisid shuruucda social mediaha. markaa qof weyn tahay intaasoo kunoo qof ay ku daawanayso oo aad wax u tabinaysid waxaa loo baahan yahay siday wax u jiraan oo keliya inaa u taabatid. ma ahan inaa aflagaadeysid dadka. ma ahan inaa u hadashid sida ciyaal suuq derbijiif oo kale sida nin cabtooy oo kale oo aan xeer qabanin inaa u hadasho ma ahan. edabta iyo asluubtana meesha lagu soo barto waa og tahay. marka ma ahan inaad caytanto canaasiirta baraha bulshada ka qeylinaysa inaad caytanto oo tiraahdo qofkaasi waa calooshuu ka bukaa waa u jiran yahay haddana aaleda ma caynayo. ku soco. salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. wacalaykum salaam. asxaabta sharafta leh waa mar kale iyo muuqaal cusub. bartan aad iga dheehanaysaanna waa bartiinii waa leeyihin sidii shurunshuurkii. ayey wuxuu ka hadlay walaalkay boodhariga caashaqa iyo weliba yaasiin haliyey. horaa idinkugu sheegay hore ayaan idinkugu sheegay yaasiin haliye iyo boodhari iyo ninkan waa 3 qandaraas qaatayaal waaweyn ah. hadalkan anigu sheegana ma aha mid igu soo laabta. maxaa yeelay markasta waxaan ka hadlaa waxay tahay wax xaqiiqda ku salaysan oo aan marna igu soo laabanaynin. sababtoo ah barnaamijkaan ka hadlaa waa barnaamij la yidhaahdo dhabka hadal. uma hadlo naceebaan qof u qabo. uma hadlo cadowtinimo qof naga dhexaysa. uma qabo waxyaalo kale balse wixii dhaco dhab ah baan ka hadlaa oo xaqiiq ah oo aan qofna lagu dulminaynin. marka hore waa idinkugu sheegay 3 nin waa 3 nin oo qooleysato ah oo isla shaqaysa oo baraha bulshada dadka ku dulmiyo waay. 3 nin waa 3 nin oo baraha bulshada dadka ku dulmiyo. qandaraasay soo qaateen oo ah inay Nadiira Nairus wiilka ceediid la yiraahdo sidii
ay u kala dili lahaayeen looga shaqaynayo. boodhari baa hadlay ayaan dhaweed waa ogeedeen wax uusan shuqul iyo shaqo aan ku lahayn ayuu ka hadlay. gabar beel sheegatay ayuu kaamirinta usoo qaatay uu yidhi beeshaa ma ahan. baaska ninkii soo dhiibayna waa kan ninkii boodhari ah markuu arkay in dunidoo dhan ay weerar ku tahayna war wuxuu yidhi baa war iga qaba dadkan adaaba igu soo jeediyey markii hore baaskan ii dhiibaye bal ka hadal arrintaa asoo hadda boodharigii difaacaya oo iska dhigaya in boodhari yahay qof wanaagsan waxa la sheegayna ay yihiin wax sax ah dembiga oo dhanna uu saarayo Nadiir Nairus ninkeeda waa ninka Cimraan barta aniga wax bartun baa idin leeyahay dadka la siray oo single maadarada ah masaakiinta ah ee iska la geesiyo noo soo baxay warnin waxaa noo soo baxay avocado weyn ah oo na difaacaya ayaan dhaweed waa ogeedeen gabar Soomaaliyeed buu coorada daawanayo oo isgaraacaysa buu saas shaashada u soo saartay ceebna idinma asturo xaq idinka maqanna idinma soo celiyo darihiisa gaarka oo idinku wataa marka saddexdaa nin waa qooleysato u shaqo tagtay bulshada Soomaaliyeed u soo shaqo tagtay bulshada Soomaaliyeed xeer qabtana ma lahan ku soco adaa ku watee anaasirtu ay ka hadlaysay boodhari bay u badnayd hayay waxay si isku mid uga hadleen oo fikirkooda ka hadleen baraha bulshada wixii yimaada baan mar walba social media dadka jooga ka hadlaan aad iyo aad waxa ay ka hadleen arrinta Nadiir Nairus waa ujeedin micnaha wuxuu leeyahay canaasiirta baraha bulshada ka hadasha waxay ka hadleen arrinta boodhari haye Soomaalidu waxbay isku qaladaa haye siin iyo saad waa la kala saaraa aad iyo aad waxa jira nin xanuunsan haye oo buka haye oo cuqdadaysan oo cuqdad fog qaba shishe haye Nadiir Nairus waa gabar fanaanada aad iyo aad waa la yaqaan Soomaaliyeed aad iyo aad bulshada Soomaaliyeed madadaalisa aad iyo aad codkeeda la dhageysto aad iyo aad bulsho badani ku xiran tahay adi maxaad ku xiijin waymo duwana khadrada ah kama duwana Maryam Mursal waa ka duwan yihiin ku soco mise waxa la arkaa Cabdifataax oo shaadiya sharaf leh yaa tahay iscadee qoladeeta dee qofka haddii bulshadu waa dhib badan tahay haddii qofka shaki la geliyo oo reer aanan ahayn lagu tuhmo dee anagaba maalin walba dad baa commentiga reer aan ahayn nagu soo qalad oo nagu soo aflagaadeeyo nagu soo sheego oo aanan ka dhalanin isku dhaweyn oo xataa 7 fir kadib xataa aan isugu imaanin dad baa nagu sheego dadka waa hadday ku aqoonin waxay rabaan inaa wax u caddaysid in qofka qabiilkiisa caddaysto meelay ceeb ku tahay ma lahan haddii la huri waayo macnaha haddii la huri waayo qabiil faa'iido male laakiin haddii la huri waayo meeshaa ka timaada in bulshada loo sheego ceeb ma ahan laakiin in idinkoo 3 nin oo waaweyn isku soo raacdiin hal gabar oo Soomaaliyeed oo reer sheegatay reerkaas ay sheegatayna nabadoonkooda aanan diidin oo dhihin waraana soo gelin annaga nama tihid ninka Nadiir Nairus dhalayna uu yahay nin caan ah oo bulshada dhan taqaano oo fanaan la xamiiste ahaan jiray oo la yiraahdo inay ilbir oo ummadda dhan markhaati furtay maxaa marka niin daba dhigay maxay tahay waxaa raadinaysaan oo aanan ahayn in Nadiir Nairus iyo ninkeeda aad kala furtaan oo aad kala geysaan waxaadan ahayn oo aad raadinaysaan bal ummadda u sheega bal u qeexa ilaan khandaraaskan waa la soo wada qaato waanu u wada jeednaa in Nadiiro iyo Caydiid jaceylkooda laga xun yahay xafladahoo ay dhiganayaan laga xun yahay hoosha ay wadaan laga xun yahay oo la raba in la kala diro maahane waxa kaloo jira hana loo sheega bal war reer hadday sheegatay maxaa ceeba ku jirto reerka ay ka dhalatay haddii ay sheegatay gabadha ma ceebay keentay ma daday dishay ma ciday u gaftay ma ilmey idinka laysay waa dad 50 sano jir u tilaabsaday wixii hadda ka dambeeya oo haddana ku heshiiyey in gabdhaha Soomaaliyeed la qaldo oo keliya qaarkoodna la ceebeeyo qaarkoodna la siro maskaxda laga bedelo tala kale oo ay ku heshiiyeen 3 nin ma jiro rooy Soomaali Maxamed 3 nin wanaag idin ma soo wadaane hales
il gaar ah ha lagu fiiriyo il gaar ah ha lagu fiiriyo naceeb uma qabo gooniya weerar gooniya kumihii laakiin sifa dhaqankooda baan la dhacsaneen oo aan la dhici waaye maxaa yeelay dad maalin daa'ima ku soo heshiiyey 3 nin hal mowqif wata waa 3 nin waa hal mowqif hal program hal barnaamij hal hadal hal qaab hal profile haye maxaa intaa oo dhan isku ekaysiiyey waa shaqo ay wada qabsadaan oo ay qandaraas ku soo wada qaataan waa wax kale ma ahan waa ogtihiin shiino culeya arrintaa soo galay asigana oo ka hadlay nadiir neerus arrinteeda ku sheegay sidii ay nimankaa war shiino culeyna waa iska taqaaniin asaabu caddaystay inuu yahay master touch war iigu shub waaye aniga waxaan ahayn ka dhigaayo war dembi haddaa gashid waa lagu dhaqaa lagu leeyahay waa lagu dhaqaa haddaa dembi gelinna yaa oo lagaa gardaran yahay qofkii kalaad ama gardaran tahayna qofka kalaa dembiga la saara annaga xoogeygan shuruurteennana sii intaasoo boqoloo kunaa nagu xiran oo annagana dhegaysata waxaan u sheegno oo keliyana qaataan saasaa khandaraaska lagu soo qaataa yaa saas khandaraaska lagu soo qaataa soomaaliya inaa wax ogaatiin waa muhiim inaa wax ka fikirtiinna waa muhiim 20 jir baan ahay wax fahmi kara caqli leh garaad leh ayagana waa rag waaweyn oo adduun wax badan soo joogay siday u dhaqmayaanna waa u jeediin waxay u caytamayaan si bareer ah oo cadcadooy ah waxay ka hadlayaanna waa social media waa wax taariikh galaya waa wax loo wada jeedo waa wax intaasoo kun oo caalamka daafihiisa kala duwan ku nool daawanaya waay hadallada ay ku hadlayaanna waa direct attack person waay macnaha aflagaado toos ah ilan hadda ani ayaga macaynaayo si bareera laakiin inay ummadda qaldayaan wax ay ka hadlayaan ay tahay been gabdhaha soomaaliyeed ceebeenayaan taana waa wax sax ah ma ahan widaa beenka sheegayo waadna arki doontiin hadal aan weligay ku hadlay iguma soo noqon hadal aan weligay ku hadlay iguma soo noqonin sababtoo ah waxaan aqaan hadalka meeshuu ka yimaado iyo meeshuu ku dhammaado waa waxaan aqoon u leeyahay waa waxaan takhasuskeed leeyahay hadalka af la qabto iyo daba la qabto uu leeyahay labadana waan aqaan meesha hadalka laga qabto iyo meesha laga daayo iska hadalna looma hadlo war mahray baa loo hadlaa haddii aan nahay canaasiirta baraha bulshada ka hadasha anagu xaqa inaan sheegno oo dadka na daawanaya aan u sheegno wax kastoona lagu yiraahdo dhibaato ma leh laakiin waxaan leeyahay raggaa waaweyn ee miyiga ku soo daahay ee caraaska ahaa waxaan leeyahay dugsiga aada iskuulada aada diinta barta tafaasiirta barta qofka biniaadamka xuquuqduu leeyahay barta aqoontiina maadiga dhisa social media kadib usoo dhaqaaqa sababtoo intaas haddaadan ka dhisneen aftahanaan ahay iyo waxaan ahaan jiray gar ceejis iyo waxaan ahaan jiray gar ruug iyo waxaan ahaan jiray gar kuleexis taa aftahannimo kaama saarayso iyo heeso laga dhintay ereyadooda iyo gabayo nimankii lahaa awoor wax ka waayey in lagu soo shartago la yidhaahdo xayow faaraxow nin rag hadal waa loo xutubiyaa nin xishoonayaan ahay haddaan lay xastiyeyne xabiib baan ahaan jeer kufsiga lagu xastiyey adna xaashi bay la timid xaakim soo diraye xaqigii adduunyadii haddaad xoole iga dooni marna kaamax war gabayadaas rag baa ka dhintay hadday dawacdo waa u hilidaa doqon walaalkeede diiftii uf baad garan intaad dacayda laalaadin dadkaa waa wax laga dhintay waay waa horaa looga dhintay waxaas inta soo xifdiyo inaan ku hadaaqoon dhaho aftahanaan ahay dee ma soconayso marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeedow wax fahma gabadhaa soomaaliyeedna waxay ahayn ma noqonayso hadday reerka sheegatay ay tahayna way naqanaysaa hadday reerka ay kasoo tagtay tahayna way ahaanaysaa meelna uma dhacayso mar walba qofka wuxuu yahay dhaafi mayso video intaana kusoo gabagabeynaa tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo